wasiirka wasaaradda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiir ku-xigeenkiisa ayaa munaasabad harimo sharafeed ah loogu sameeyay magaalada Hargeysa. waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaraddaasi, odayaal, culimaadudiin, aqoon-yahan iyo marti sharaf kale. waxaana ay soo dhaweeyeen wasiirka cusub iyo wasiir ku-xigeenkiisa wasaaradda duulista iyo madaarada ee jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo sheegay in ay u rajeynayaan in ay shaqadaasi si wanaagsan uga soo baxaan. marka ugu horeysa waxaan leeyahay soo dhawaada. labaadna waxa weeye waxaynu u ducaynaynaa nebigu sal alla alay slam wuxuu yidhi qofka wax ku siiya waa loo duceeya. khadar ciisahay baynu isna u ducaynaynaa. baaraka aynu leenahay aftar cindakum asaa'imuun wa akala dacamakum alabraar wasallat calaykum almalaa'ika allahuma akfir lahu allahuma baarik lahu fi awlaadihi wa fi amwaalih. kelmadda saxaadna waxa weeye waxaynu galnay wakti cusub aynu galnay oo aynu doonayna isbedel inuu waddanka ku dhaco oo rajo weyn aynu qabno. marka wasiirkii wasiir ku-xigeenku dee diyaaradii baynu saarnay, diyaaradihii ayaynu saarnay. marka waxaa loo baahan yahay marka ugu horeysa inaynu isberber taagno oo la shaqayno ayaynu insha allah rajaynaynaa. waa idin berber taaganay. waxaan aad u soo dhaweynaynaa wasiirka cusub ee loo magacaabay wasaaradda duulista iyo hawada iyo wasiir ku-xigeenka. waynu soo dhaweynaynaa, waanaynu u ducaynaynaa. waxaynu leenahay ilaahay xilka ha idinku asturo. waxay u baahan yihiin kolley duco oo maaragtay in loo duceeyo ilahay inu xilka ku asturo. waxay u baahan yihin in la isberber taago oo dadka wixii waxgarad ah ee runtii dee reer Somaliland ama u dhoweynay wixii kaga gudboon waajibkooda ka qabsadaan oo ay taageeraan. aad iyo aad baan idinla qabanaynaa wixii awoodayada ah ma wixii aan nooga baahataan. waan idin soo dhaweynaynaa, waan idin ducaynaa. waxaan leenahay xilka ha idinku asturo. labadeennaa wasiir ee isku xiga inaynu dhiiri gelino oo aynu magaranaysaa waxa la yidhi gacani in dambe wax u goysaaye aanu dhahno annagaa idin daba taagan oo idinla shaqaynayna oo horumarkiina iyo wanaaggiina jecel. wasaaraddan la idiin dhiibayna waa wasaaradda kolkan diyaaradda raaca aan ugu nabcay ma garanaysaa kole diyaaraddu sidaa iyo sidaa tidhaahdo ayna ilaahu rabbagu naga sabata bixi. ilaahay bay naga sabata bixinaya shaqadeeda iyo raacniinkeeda iyo nuurkeedaba ilaahay bay naga sabata bixinaya. way inoo wanaagsan tahay. wasiirka wax kale la odhan maayo, wuu ku cusub yahay shaqada, laakiin waxaan leenahay insha allahu tacaala dardaaran baynu firaynaa iyo in sidii maaragtay aynu garab istaagi lahayn. waxaynu doonaynaa insha allahu milestone-ka maaragtay Somaliland kolba dhagaxya soo dhigaysay inuu isaguna wax weyn biidni illaahi uu maaragtay sii wado oo shaqo fiican meeshaa kaga tago haddii alla yidhaahdo. sidoo kalena maaragtay wasiir ku-xigeenka isagana maaragtay waynu soo dhaweynaynaa iyo sida maaragtay in shaqada si fiican insha allahu tacaala ay u wadaan. mar labaad waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka. waxaa kale aynu isla mahadnaqi doonaa insha allahu khadar ciise haybe iyo shirkadda sarmad oo casuumaddani noo sameeyey. runtii dee waa kulamo badan waa jira. casuumadda qof waliba qaduu haya karaamada iyo sharaftu waxay ku jirtaa inuu qofku maaragtay casuumaddaas sameeyo. marka allaha ku karaameeyaanu leenahay, shirkaddana allaha barakeeyo. casuumadahan iyo dee mid kaloo badanba way qabtaan, allaha barakeeyo. intaa kadib wasiirka Fahad iyo Yuusuf runtii waa niman dhalinyaro ah, waana niman hore xilal u soo hayay oo aanay ahayn niman ay xilalka ku cusub yihiin. waa niman aan aqoon u leeyahay oo in badan aanu wada joognay. waa niman mudakar oo ku mudnaa raggan maaragtay rag mudan ahaa. markaa nin baa yidhi la yidhi ilaahu geelisi caanihiisa ana isu haye shaqadiina doorta idinkaa isu haye dadka saa ula dhaqantaan insha allah. anaguna diyaar baanu mar walba idiinay. waxaa waxaan idinkala hadhayna ma jiro. haddii shaabadda la insaaro sida jabaanta la yidhi ninka baa shaabadda markay ku dhuftaan ninka soo shabaan halkuu ka degay waxa la shaabadaas ma ku wadaysaa. shaabadda waanu idiin saaray horta anagu. niman dhalinyaro shaxshax badan oo magaaladana dee maaragtay in badan soo joogay baa tihiin, fahamkeedii aragtideedii aqoonteeda. erbood qurux badan baan idinka rabnaa, intaasoo keliya anaga naga badan. runway fiican, erbood qurux badan iyo adeeg wanaagsan oo meesha ka soo baxa bis. marka intaana kulli waad kartaan insha allah. dee intaa ha yaraysanina. wasiirka wasaaradda duulista iyo madaarada jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaraddaasi
ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxaana ay ka mahad celiyeen harimo sharafeedaasi iyagoo ka sheekeeyey qorshaha cusub ee wasaaraddu ay ku hawlgeli doonto iyo waxyaabaha ay qaban doonaan. أنا هذه أدو كفر حسنا هاي مناسبة دان يكوي كهرية نلقول يرجعين أيو إسلامر كانا نلوش شيء رتشوي نلاقى قبض إن شاء الله ولاهي نقول قولين دونه مركور إلهي وحن كبر يا سبحانه وتعالى مسؤولية ده عن قادمين إلهي نقول أسطره ودعادينا أما أمينتنا إلهي إنه أقبله dadku expectationkiisu ama filashada ay naga qabaan waa mid aad iyo aad u weyn ilaahay waxaan ka baryayaa inaanu taa nagu beenayn ilaahay ka rumeeyo waan idin baahanay waqti kasta iyo saacad kastaba waan idin baahanay garab istaagiina iyo inaad nala shaqaysaan iyo inaad tala iyo tusaale iyo tilmaanba na siisaan xafiiskaygu waa idin furan yahay goobaha gaarka baa noogu sheegi kartaan waqti kasta waa diyaar baan idin nahay waanaanu qaadanaynaa midna waan saxayaa oo horta mas'uuliyadda naloo dhaariyay ama aanu qaadanay maaha madaarka caasimadda oo kaliya dalku madaaro badan buu leeyahay madaarada dalkoo dhan baanu insha allahu hadduu ilaahay yidhaahdo inta yaree aanu joogno aan isku dayi doonaa itaalkayaga inaanu wax ka qabanno hadduu ilaahay yidhaahdo qofkuna hadduu laba uun xasuusan yahay waxbuu qaban karaa kow hadduu xasuusan yahay inuu meeshan waqti yar joogayo oo intaa yaree uu joogayo uu doonayo in wax lagu xasuusto ama raad uu ka tago mid labaadna haddii qalbigiisa iyo nidiisa ku jirto oo ah inuu waqtiyada ka mid ah uu dhimanayo labadaa haddii maskaxdiisa ku jirto inta waqtiga yaree uu haysto uu dadaalayaa inuu wax ka tago hadduu ilaahay yidhaahdo markaa rajadaa iyo himilada naga qabtaan ilaahay ha nagu asturo marka hore waxaan jecelahay oo aan xusayaa dardaarankii faraha badnaa halkan laga yidhi sheekha iyo suldaanka iyo odayaasha iyo ganacsatada dhammaantood mas'uuliyaddiina saarnayd ee markii hore cuslayd ay sii cuslaynayaan wax kaloo iyadana ay sare u qaasa filashada aan isleenahay waxba leed ka filaya marka ilaahay waxaan ka baryayaa in dardaarankiina uu noo weelayo ducadiina uu noo aqbalo annaguna nagu asturo mas'uuliyadda ay xilkaas inta haddaan ka imaado arrinta ku saabsan wasaaradda aanu mas-uuliyadda ka nahay wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada waxay qaranka u haysaa laba arrimood oo waaweyn bay u haysaa labada arrimood waxa weeyaan aviationka oo ah duulimaadka iyo hawada oo laynaga doonaya inaan la nimaadno sharciyaddii iyo nidaamkii aynu aviationkeena ku maamuli lahayn oo ku salaysan shuruucda adduunyadu ay ku maamusho aviationka qodobka labaad ee wasaaradda mas'uul ka tahay waxa weeyaan waxa la yiraahdo infrastructure development oo ah in la dhiso airportadii ama ha noqdo airportka Hargeysa ama ha noqdo ka Berbera ama ha noqdo ka Burco ama ha noqdo ka Ceerigaabo ama ka Boorama ama ka Sayla ama ka Laascaanood ama mid kasto magaalo kasto Soomaaliland ku yaala isagana in la dhiso la horumariyo haddaba si airportadina loo dhiso la horumariyo iyana waxa ku jirta arrin kale oo farsamo airportada kuma dhisi karno siyaasad oo lama oran karo deegaanka airport laga dhiso kuma dhisi karno caadifad oo halka hal dhiso lama oranayo waxaanu sameyn doonaa oo priority wasaaradda noogu jirta inaynu sameeyno waxa la yiraahdo feasibility-gii oo horta baahida aynu qabno ee infrastructure development wadankeenu muxuu yahay imise airport caalami ah u baahannahay marka culimada iyo salaadiinta iyo ganacsatada iyo khayraadka fadhida iyo inta kale Soomaaliland waxaan uga baahannahay inay nagu taageeraan himiladaas annaguna waxaan ballan qaadanaa aqoon iyo aragti iyo dadaal iyo karti midna inaan waxba kala hadhi doonin sidii ay Soomaaliland u heli lahayd airport caalami ah